sarkaalkii ugu sarreeyay ee dagaalka hogaaminaya waxa uu ahaa General Maxamed Cali Samatar ama sarreeye guud Maxamed Cali Samatar oo isagu ah ninka Soomaaliyeed ee darajo ciidan halka ugu sarreysa ka gaaray oo aan shaki ku jirin in badankiinu aad wada garanaysaan marka laga reebo intii garashadoodu oo ay indha dilaacsatay dhowr iyo 10 sanadood ee ugu dambeeyay haddaba waxaa noo suurta gashay inaan waraysi la yeelno General Samatar oo haatan isagu ku nool wadanka Mareykanka oo aanu filayno in dad badan oo na dhageysta ay aad u dhageysanayaan oo ay ugu dhagtaagayaan waxa uu oran doono General Samatar sababtoo ah xogogaalnimadiisa iyo doorkii muuqday ee uu kaga jiray dawladii Soomaalida ee xukunkeedii uu dumay sanadku markuu 1990 waxyaabaha aanu wax ka weydiinay waxa kamid ahaa dagaalkii 1977 ama se dadku sida u dhigaan ba lagu soo gaabiyo dagaalkii 77 saaxiibkii Cabdilaahi Xaaji oo General Samatar waraysi dheer la soo yeeshay markii uu dagaalkaasi wax ka weydiiyay General Maxamed Cali Samatar waxa uu yidhi dhacda xusuus weyn ileh waxa weeye dagaalkii 77 oo annaga iyo Ethiopia na dhaxmaray dagaalkaas mid weyn buu ahaa taariikhda way xusaysaa kutub badan bay ku qoran yihiin dugsiya la iska baraa al'aana dawlado badan baa dugsiyadooda dagaalka ka dhiga dagaaladaas aynu annaga iyo Ethiopia galay na dhaxmaray dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal si fiican aynu u qorsheynay si fiican aan u maamulay anigana shakhsi ahaan xusuus weyn ileh oo taariikhdeeda meel weyn ka gelayo guud ahaan Soomaaliya dhan taariikhdeeda dagaalkaas meel weyn ka gelayo maxaa yeelay Soomaali waxay ku muuqatay dadka qiimaha ay leedahay dadnimadeeda iyo kartideeda ayay ku muuqatay maxaa u sababa waxa u sababa Ethiopia markaa waxaa loo yaqaanay libaaxi Afrika libaaxi geeska Afrika ayaa loo yaqaanay cidina isma lahayn ciidanka Ethiopia ciidan isur taagi karo ayaa Afrika ay leedahay cidna kuma fikraynin markaa laakiin ciidankii libaaxi geeska Afrika la baxay bisad baan ka soo saaray muddo bilooyin aan badneen gudaheed haddaanan loo soo gurmanna dibadda aan looga soo gurmanin oo dawlada waaweyn iyo ciidamo badan coalition ciidamo isbahaystay badan ayaan u soo gurmanna xaaladda intaa ka duwanaan lahayd dagaalkaas waxba yaanan ku dheeraanin hase yeeshee markaan xuso goobihii ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahayd jigjiga oo ciidan xoog leh Ethiopiaanka markaa uu u joogay ciidamadooda taankiga ayaa fadhin jiray sideedana waxay leedahay jigjiga difaac adag oo dabiici ah buuraaley weeye markii difaacaas la abaabulo la qodo way la yaqaanaa sahal laguma mari karo isma ayan lahayn Ethiopiaanka karamardha ayay jiiri karaan Soomaalida oo muddo gaaban ku jiiri karaan isma ayan lahayn dagaalka jigjiga aad buu runtii waadka u qallafsanaa haddaan xusuustayda dib ugu noqdo 14 casho ayuu nagu qaatay jigjiga inaan ka takhalusno jigjiga waa dhaafnay waa la wada ogyahay harar markaan marayno ayaa ay noqotay inaan ka soo noqono oo ciidamo kale iyo awood naga badan ay soo gashay meesha lagama maarmaan ay noqotay marka inaan ka soo saaro ciidamadannadii oo aan ka soo baxno markaan aragnay qowida meesha soo gashay hubka soo galay olalka soo galay hadday tahay annaga iyo Ethiopia kaliya kama soo baxneen mana ay suurowdeen in laga soo saaro markii annana aan kaligayn noqonay oo marka halkaas waxay ku tusaysaa يعني militarily waan ku adkaynay dagaalkii laakiin politically ba annala aynu weynay allied ama rag nala safto
dawlada nala safto oo na soo barbar istaago oo nala galo dagaalkii baan waynay ayana ay heleen. waxaa daba dhegaystayaal la isweydiin karaa oo dadkana dhegaysanaya isweydiin karaan waxa dawladdii Soomaaliyeed iyo ciidamadeediiba ay u waayeen taageero shisheeye ah oo muhiim waqtigaasi ahayd gaar ahaan in waaweyn ee waxtarkooda isbedel ku sameyn lahaa dagaalkaasi. Jal Maxamed Cali Samatar oo arrintaasi iyo khasaaraha dad ee labada dhinacba soo gaaray ka hadlayay oo uga jawaabay Cabdullaahi Xaajina waxa uu yiri sababtu way iska caddahay waxa weeye annaga markaa waxaan u muuqanayn dad weerarayo dad kale dalkiisa marka cidina diyaar u maaha inay gacan ku siiso cid wax weerarayso. Etoobiyana dad isdaafacayo oo la soo weeraray ayay ahaayeen marka waa la daafacayo waa gacan baa la siiyey. laba quwado waaweyn baa jiray labadii quwado waaweyna mid ayagay la safatay oo Ruuski ayagu la saftay. maxaa dhacay ilaa idinku markii hore la socdayo tababar idin siiyo aad isku dhaweydeen? waxaa dhacday Ruuska markii dagaalka uu muddo socday Ruuska wuxuu cilaaqaad xoog leh la yeeshay Ethiopia wuxuu degay Ethiopia wuu xisaabtamay Ruuska Ethiopia iyo Soomaaliya isbarbar dhigay wuxuuna doortay Ethiopia sababo badan aawadood. amare Ethiopia dad ahaan way ka badan tahay Soomaaliya dal ahaanna way ka weyn tahay Soomaaliya. marka xigaa waxa weeye Soomaali shuuciyad ma noqonayso waa geli kari weyday wuu ogaaday. Ethiopia se waa gashay shuuciyadii waa qaadatay Mengistu iyo raggiisii waxay yiraahdeen way cadeysteen shuuciyan inay yihiin dabadeedna waxay goosteen mabda'iyan halkaas inay u leexdaan ka dhigtaan saaxiib baruna Soomaalidana saaxiib ku meel gaaro ahaa in markaa ay ka tagaan ayaa la qumanaatay. markii aad soo baxdeen xabar aad ku soo noqoteen ciidamadiinii markaad eegto guud ahaan imisa ciidana ayaa idinkaga dhintay askarta idinkaga dhimatay qiyaastii maxaad ku sheegi karaysaa? tirooyin kala duwan baa jira 30,000 baa la sheegaa 20 baa la sheegaa 15,000 baa la sheegaa maxaad ku qiyaasi karaysaa? Cabdullaahi wararkaas waa maqlay meelaha laga tuurtuuray oo la sheego waxba kama jiraan intaas figure ama tira aad hadda sheegtay intaba ma jiraan. dagaalkii 77kii annaga iyo Ethiopia ma dhaxmaray ilaa iyo xataa markii lagu daro kii dambe oo 81kii 82kii oo Galdogob iyo Balanballe ka dhacayay intaa markii la isku daro wixii nooga dhintay ciidamadii nooga dhintay Ethiopia dagaaladeedii 5,500 nin weeyaan oo nin u sandheereen. intaasi waa inta rasmiga ah ee idinku aad isu sheegteen laakiin tiradu inta aad bay uga badan tahay baa la yiraahdaa. waxba kama jiraan waxa anagu waa noo tirsan yihiin dadkanaga beenna ka sheegi mayno ninkiisa dhintay ma qarinayo taariikhda la soo dhaafay way haddii markii dagaalka lagu jiray la qarqarin karay maanta ma joogto maanta inaan qariyaa wax faa'iido ku jira male 5,500 nin baa nooga dhintay maxaabiis annaga Ethiopia aan kala haynayna annaga waxay naga hayeen 270 nin markii weliba intooda badan ay qabteen intii Galdogob iyo Balanballe dagaaladooda ay socdeen. dagaalkii 77kii 17 nin bay naga hayeen dhammaan ciidan ahaan. idinla imsadeyseen? annaga waxaan haynay ilaa
6,000 ciidan gaar sarkaalkii ugu sarreeyay ee dagaalka hogaaminayay waxa uu ahaa jenaraal maxamed cali samatar amase sarreeye guud maxamed cali samatar oo isagu ah ninka soomaaliyeed ee darajo ciidan halka ugu sarraysa ka gaaray oo aan shaki ku jirin in badankiinu aad wada garanaysaan marka laga reebo intii garashadooda oo ay indha dilaacsatay dhowr iyo 10 sannadood ee ugu dambeeyey haddaba waxaana suurta gashay inaan waraysi la yeelno jenaraal samatar oo haatan isagu ku nool wadanka maraykanka oo aanu filano in dad badan oo na dhegaysta ay aad u dhegaysanayaan oo ay u dhegtaagayaan waxa uu oran doono jenaraal samatar ama xaasaskoodii ama hogaalnimadiisa iyo doorkii muuqday ee uu kaga jiray dowladii Soomaalida ee xukunkeedii u dumay sanadku markuu 1990 waxyaabaha aan wax ka weydiinay waxa ka mid ahaa dagaalkii 1977 ama dadku sida u dhigaan baa lagu soo gaabiyo dagaalkii 77 saaxiibka Cabdilaahi Xaaji oo jenaraal samatar waraysi dheer la soo yeeshay markii uu dagaalkaasi wax ka weydiiyay jenaraal maxamed cali samatar waxa uu yidhi lacaba mala awaasuus weeyaan xisaab saxa weeye dagaalkii wixii 77 dhintay oo annaga kuma siin raxmaray mana jiraalkaas mid weyn uu ahaa inaan maartay taariikhda way isqasaysaa laakiin dad badan haddana wixii annaga aan aragnay ama dugsiyaa la iska baraa oo aan sheegi karaa dowlado badan baa runsiyadooda halkaas ma xaqiiqdii intaas weylaalabay karo qoladii dhibaatada ay gaartay baa sheegi karta dagaalka marka qiyaastanagu ahaa dagaal si fiican waxaas wixii ay qorsheynay si fiican markaan u soo qaado aniga aan shakhsi ahaan xusuus weyn taqriiban taariikhda toban weyn ka geliya 7 Soomaaliya dhan taariikhda dhintay dagaalkaas beel wadagaalka maxaa yeelay waxayna hadaba la isweydiin karaa dhegaystayaal ciidamadii Itoobiya oo jenaraal samatar uu ku tilmaamay in markii hore loo arki jiray libaaxa Afrika laakiin sida uu sheegay samatar ay ku soo celiyeen heerka sare inta ilaahi Afrika ayay markaasi ahayn ciidamada Soomaaliya ay lahayd markii ay dagaalka galeen jenaraal maxamed cali samatar intaas oo ka jawaabaya waxa uu ciidanka Itoobiya intuu dagaalka soo taagan karo ayaa Afrika ay leedahay kan dagaalka fikirin marka laakiin ciidankii dagaalka geeska Afrika la baxay dabadeed bis dagaalka soo saaray markuu laga soo baxay bilooyin ciidamadii in badan waa siiday gudaheed waxaas haddaanan loo soo gudban markii dambe dibadda aan looga soo gudbanin dowlada waaweyn ku dhawaayo ciidamo badan coalition ciidamo aniga kulliba aan isbahaystay gaashaandhigayaan u soo gurman 20,000 xaaladda soo dadweynaada marka dagaalkaas waxba u fiirsato dheeraanin si yeeshee markaan kusoo goobihii ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ah jigjiga sideebaad u qiimayn karaysaa jigjiga ciidamada ciidan xoog laba nin markaa u joogay ciidamadooda taangiim ahaa ayaa fadhin jiray sideedana waxay leedahay jigjiga difaac oo dagaalo badan soo galay dabiici ah oo raalay weeye markii difaacaas la abaabulo la qorayihii dambe la qorayo waay lagu qorayo tababarka ama mari karo la siiyey isma ayaan lahayn Itoobiyaanka kaaraamadiisa saacan ayay jiiri karaan Soomaalidiisa dagaaban ku jiiri karaan isma ayaan tira badnaa laakiin dagaalka jigjiga way jiray kuntu waa ciidan hore maartay tiradiisa iyo xusuustiisa dib ugu noqdo ficneedna waa 10 casho ayuu lagu qaatay jigjiga waxyaabihii inaan ka takhalusadeen gacanta jigjiga waa dhaafnay waa wada ogyahay waxay nooga xirnayd ciidanka cirka markaan maray xagga dagaalka cireen noqotay inaan ka soo aaday Itoobiya nooga fiirnay kale annaga waxaan awood